waxaan soo gaarnay tuulo ka tirsan degmada Balcad la yiraahdo Cadiga waxaan u soo gaarnay inuu ka jiro cudurka la yiraahdo shuban biyood oo ka jiro ku geeriyootay oo la 5 cunug oo hore ugu dhimatay hal u dambeeyay saaki la duugay hal qoys ay ka dhintay 5 saddex cunugna ay hadda ku taagan tahay filimada ilaahay 3 cunug hal qoys ay ka dhimatay inta kalena waxaan leenahay inta hadda jirana Allah ka qaado inta kalena ilaahay uma keeno markii lamaad waaye deeq oo dad soo sadaqaystay ayaan u keenay filimbooyin iyo kaniiniyaal oo kala duwan iyo ORS waxaan soo gaarsiinay waxaana la jiro maamulka degmada Balcad gudoomiye ku xigeenada kan maaliyadda iyo kan ku xigeenka koobaad xagga amniga iyo siyaasadda ayaa nala socdaano ciyaalka iyo ninka dhakhtarka ah ayaa ugu weydiinay ninka dhalinyarada oo dhakhtarka oo balay dhakhtarkiisa ah ayaan gacanta ka saarnay ninkaas ayaan u dhiibnay isla markaas daawadaas inuu si tartiib ah dadka qaraabadiisa oo walaalihiisa inuu ku wareejiyo saas aan jecelahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maanta iska leh oo maanta iska keenay meeshaan ujeedka oo nimid waa maalintii labaad oo meeshaan aan nimaano waxaan u nimid dhibaato shuban biyood oo ka dhacay tuuladaan Cadiga ah kadibna maxay dhahay waxaan kala kulmay dad macnaha ilaa iyo gaarayo 12 maantana waxaan taaganahay isla tuuladii ayaa dib labaad ugu soo laabanay kadib markii nala sheegay ilaa hal qoys inuu ka geeriyay 5 ruux cunugu da'da weyn oo ahaa 10 jir sidaas darteeda maxay dhahayeen maadaama annaga kolay meeshan waxaan ku ognahay ama aan ku naqeeni inuu ku yaal MCH qalimo oo uu talagalay inay degmooyinkan tuulooyinkan oo gurmud u sameeyo waxaan daro dadka meesha ku noolaa inay ka soo dacwadaan dadkana ay u geeyaan kadib markay u geeyeen ay yiraahdaan anu waxa idin hayna malaha daawana idin hayno wax kale idin hayno waxaan dar aad u weyn waa hay'ad aan ku xisaabtamayni qalimo saar iyo dhulkaas oo dhan inay ka baxaan ay yimaadaan xawaale iyo dhagaxo iyo shillo iyo ufidaari iyo yaaqli ilaa sanad yimaadaan ay ka filan waa hay'ad magac leh taariikh leh la yaqaano waxay qabataan la ogyahay wadanka in hal qof oo maanta madaxeed magaalada loo geeyay meesha oo ilaa wax kama qaban karno oo goolay magaalada qaadan oo naf baxay waa ayaan daro ma ka filan mana kasbeen taas waxa leenahay inay barnaamijkaas wax ka bedelaan in isku wacyigeliyaan kolay codkayna waa cod dheer hadda waxay tahay kolay maanta waxay tahay cid taaka noo qabato waligeena hilmaameen cid taaka noo qabato maanta ummadan masaakiinta oo abaarta hayso oo dhibaatada ku dhacday qofkii taaka abaar u sameeyso ilaahay qofkii taaka abaar ugu sameeysan ma qobna la joogo ilaahay yiraahdo saadada waxa la ummadan waxa wax tari kara Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaan u baryanaa inuu roob ilaahay siiyo oo madar khayr qaw ilaahay siiyo oo caafimaad leh saadada Allah subhanahu wa ta'ala saaka weyn asaana dhibaatada bixi karo asaana qaadi karo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh